وعيار كجرتي الصومالي مدة كبدنا 40 سنة وحنا لو يقانا جودو ciyaaryahan walba waxa uu baranayaa qaabka uu isku difaaci lahaa taasoo qayb ka ah nolosha qofka. Dagaalada soo kay markay dhaceen ka bacdi dib ayaan soo raadsan waxaan suuro gelinay inaan mar labaad xiriirada qaranka Soomaaliyeed Olympic qaranka Soomaaliyeed waxa dalka ka dhisan inuu ka mid noqdo. Alxamdulillah rabbil caalamiin waa noo hirgashay. Habacsanaan dheer ka bacdi hadda waxaan isla garanay guddiga Olympic qaranka Soomaaliyeed oo gudoomiyaha ka Cabdullaahi Axmed Rabbi iyo tiimkiisa in macnaa xiriir walba wixii uu qaban karo uu soo bandhigo marka taas keentay in maanta ay isu yimaadeen ardadan 20 sano ugu dambeysay aan wax baraynay oo qaarkood hadda macallimiin ay u gudbeen iyo wixii ay haayeenba inta anoo gudoomiye ah in ummadda Soomaaliyeed soo bandhigo Somali Judo Federation waxay diyaarinayaan tartan ay ka qayb gali doonaan ilaa 4 kooxood oo dhalinyaro ah waxaana tababarka siinaya dhalinyaradan macallimiin si weyn u taqaanta ciyaarahan anigoo 8 sano jiraan bilaabay ilaa haddan ku jira marka macallimiin aad u fara badan oo Shiinees iyo Masaari iyo Faransiis oo na soo bareena jira kuwii aan kala harnay abuurka annagana ardayda Soomaaliyeed aan rabaa hadda inaan barno marka maxaa ka faa'iido islaadahay wallahi waxa laga faa'iido horta difaac nafsi waa qofka wuxuu anfacaa isaga shakhsigiisa oo anfacaa wax barashada tan kale qaranka Soomaaliyeed oo isboortigan waa anfaca si wadankooda ay guul ugu keenaan ay macnaheedu xanaasi ciyaaraha judo ciyaarahan waxay bilaabneen 8-maadkii marka saasay ku soo socdeen ilaa waqtiga hadda la joogo mana wili ma soo shacbixin wili Soomaaliya macnaha si fiican ma u shacbixin way hadda marka sharciyada ku tababartaan iyo qaabka sharciyada waxaa sharci ah qofka asagoon horta dhicitaanka uusan baranin inuusan macnaha ciyaari karin ciyaarahan barkay ciyaarahan waxa waaye 65 centigrade oo qofka soo mara qofkaas haduusan sidoo isu badbaadiyo iyo sidoo u dhaco haduusan aqoonin ma bilaabi karo كمعلمين أهان أنا كنا حنجعلنا إن دتكي أو عيارتنا حسينا سيدي أد بلارن إنه مثلا أنا كنا أن جرب كوسينو وحنصير جينا هير عالمي إن أنا خنا أو أن عالم كنا سيدي أن وترتنو أنا جو وضعنا قدومي هيجنا أنا جو سلوات الصعنو عياري سيدي أن وضع خيب قلنا وحن كلام سير جينا دلنا الصوماليات وحن جوابنا إسبورتي وهل لكن ما هو إسبورتي إنه فرق كليه إسبورتي مال الله ماشي كسوق شو إسبورتي وحن نرجينا إن أنا كنا نقول ديتان عيارة سير sanadaha dambe anaga saan u qabanayna ka dar inaan noqon qabataan waxa jira diyaar garow xooggan oo ay sameynayaan tartamayaasha ka qayb gali doona tartankan lagu qaban doono Muqdisho iyadoo ay ku bixinayaan dadaal badan sidii ay tartankan u soo jiidi lahaayeen daawadayaal ku cusub ciyaaraha judoga waa dhalinyaro kala duwan oo isku diyaarinaysa tartanka judoga oo xiriirka Soomaaliyeed judoga ay ku qaban doonaan magaalada Muqdisho maalinta Khamiista ee soo aadan waxaan dhalinyaradan ay hobby u leeyihiin inay ciyaarahan iyadoo ciyaartan ay tahay ciyaar sharciyadeeda aad markaasi ay u fududahay markaad dhex gashid ciyaaraha judoga waa xiriir aad u fiican oo loo baahan yahay dhalinyarada macnaha in la dhiirigeliyo inay ciyaaraan sameeyaan mustaqbal looga dhigo jaanisyo la siiyo si ay ugu faa'iideystaan xirfadooda way adiga misana ciyaaraysa ciyaarahan wallahi muddan ciyaaray waqti badan ugu yaraan 12 sano 14 sano meelaas tartan hadda furmaayo qayb galaysan xiriir tartan cusub oo noo bilaabanaya Khamiista jiro kaasaan ka qayb galaynaa 5 kooxood aan nahay 5teena koox waxaan rabnaa si nidaam ah inaan ku dhameysano insha Allah wayahay waxa soo dhamaada saaka tababarkii halka lagu sameeyay ciyaartooyda judoga ay sameeyeen waxaana tababarka saaka u ahaa mid cajiib ah iyadoo ciyaaryahanada ay si weyn u diyaar garoobeen maalinta Khamiista ee soo aadan oo tartanka u furmi doono Maxamed Cabdi Muudi Astaan Sports